wafdi ka socda xoghaynta qaran ee xalka waara ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay gudaha magaalada kula kulmeen maamulka gobolka Hiiraan guddiga abaaraha iyo fatahaadaha siyaasiyiin culimaawidiin iyo waxgaradka gobolka wafdigan oo ujeedada booqashadoodu tahay inay u kurgalaan sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada iyo saameynta ba'an oo ay mar waliba fatahaaduhu ku reebaan magaalada Beledweyne ayaa xooga saaraya sidii xal kama dambaysa lagu heli lahaa saameynta ba'an ee mar waliba webiga Shabeelle uu ku reebo magaalada Beledweyne kulan gaar ah oo ka dhacay hotel Goodir una dhaxeeya xoghaynta qaran ee xalka waara iyo guddiga abaaraha iyo fatahaadaha ayaa la isku afgartay in si wada jir ah loo sameeyo qorshe guud oo lagu hortagi karo fatahaadaha ugu dambeyn guddiga abaaraha iyo fatahaadaha ayaa soo dhaweeyay qorshaha ay la yimaadeen xoghaynta qaran ee xalka waara taas waa idinka mahad celinaynaa dadkaani waa dadkii odayaasha magaalada ka ahaa oo shafdhiga u ahaa haddii yihiin ganacsato haddii ay yihiin odayaal waxay garteen inay halkaan idinku sameeyaan casho sharaf cashadaasoo ay ugu tala galeen inay calal aqal ay yiraahdaan waad mahadsantiin inaad idinku dhahan marka Soomaalidu waxay tiraa gacantii goggeeda subagtayda isu gargaartay dalka waa wada leenahay waa dalkiinii ku soo dhawaada in dhibaatada Beledweyne haysata oo fatahaada ah oo mar walba ku soo noqotay waxa weeye sidii wax looga qaban lahaa in dad badan u istaageen gaar ahaan annagu waan u istaagno guddigan uu ka mid yahay guddiyadii u istaagay odayaashii wax ka qabadka inay wax ka qabtaan tabari meeshayna dhigtay kulley waxna waan haysanaa walaalana waan leenahay maanta waad ogtihiin waxa Hiiraan ka dhacay sida loogu soo gurmaday haddii ay tahay adduunyada dacaladeeda iyo haddii ay tahay Soomaaliya oo dhanba Soomaaliya isu soo gurmatay maaragtaa aad ogtihiin 18 fatahaada timid 19 way timid cabsida noogu weyn oo hadda tan soo socota in aan annagu wax qabsanaa hadda diyaar u ahayn haddii aan wax kala weyno inaan keliyaashan iyo waadiyaasha magaalada mara inaan iska baarbaarno waxaan rabnaa marka haddii aan nahay odayaasha dhaqanka annagu xaqiiqdii guddigan hadda oo guddiga oo haddii ilaa fatahaadda la yidhaah ayagu isma dooran heer Hiiraana doortay waxaana la yidhi ushaada ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa inayna baahnayn aan ugu dhiibnin inay waxgarad yihiin aan ugu dhiibnin inay aqoon leeyihiin aan ugu dhiibnin welina lama arag nin ka daba hadlo oo Hiiraan joogo Beledweyne jooga lama arag waxaan ugu dhiibnane sidaan wax ugu dhiibnane waxbay ku keeneen xaqiiqo aad iyo aad odayaan u tagin nin kalaan u tagin maamul iyo waxbaan u tagin maanta gobolka si fiican ay ugu duubteen haddaanne waxaan leeyahay ayagaa ashadaan dhigay oo yacni soo dhaweyntaan ayagaa keenay horta aad iyo aad aan ugu mahad celinayo aniga hadalka ma badinayo cid kasta iyo xafiis kasta iyo aad ka socotiin iyo wasaarad kasta oo ka socotiin horta waxaan rabnaa markaad laabataan haddii alla idmo inaad nagu salaantaan waxaad sheegteen inaad ka socotaan ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda kaleeto oo badan inaad ka socotaan qof kasta wasaaradda ay mas'uulka ka tahay nagu salaama waan idin soo dhaweynaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa ganacsatada gobolka Hiiraan annaga hadda 3 daanood ayaan nahay intaan kaleeto waa ganacsatadii gobolka oo dhibka iyo dadka la qaybsanaydo mar ayagu nacfigooda ku bixinayay ku siisima lahay waxa oo soo gurmanaya sidoo kale xoghaynta qaran ee xalka waara ayaa uga mahad celiyay guddiga sidii wanaagsanayd ee lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne aad ugu mahadsantihiin in sanadkan insha Allah waxaan keenaynaa in wax qabad qaba la helo si dadkii macnaha dibkii 2019 wixii ka horay dhacay inaysan dib dambe noogu soo marka idinkana inaan waxaa haysaan anaga waxaa haynaa isku keenno oo xoog siman oo wada socdo aan noqono oo ummadda inaan u adeegno intaasaan horta noo ujeedkeena yahay waana ku mahadsantihiin sida sharafta aan soo gaarsiin Cabdiwaaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne